السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada cashirka maanta waxaynu ka hadlaynaa waxyaalo badan oo mobil ku saabsan oo loo yaqaano secret codes. yani mobilkan aad seetid hadda aad yani muuqaalka ka daawanaysid qaarkiin laga yaabo in muuqaalka ka daawanayaan wuxuu leeyahay waxyaalo badan feature fara badan buu leeyahay. qaarkood graphical ahaan baa loo xaliyaa, waxa laga yaabaa disable ka yihiin markuu cusub yahay. qaarkood kalena code yani adoo code number garaacaya baa lagu activate gareeyaa activation. sidoo kale waxa faa'iido ku leeyahay inaad mobilkaaga markaad iibsanaysid oo kale inaad test samaysid yani mobilka yani touchkiisa oo kale ama samaacadiisa speakerka oo kale ama yani kalaradiisa kala duwan. yani adigu waxyaalo badan information badan aynu ka hadli doono maanta oo muhiim ku ah oo مثلا markaa u baahan tahay inaad samaysid yani general test wax loo yaqaan oo mobilka xaaladiisa guud mobilka iibsanaysid moolo badan moolo qaar moolo original ah qaarna moolo hay copy oo yani aan original ahayn. marka cashirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay qaabkeenu ogaan lahayn waxyaalo badan oo koorar badan oo mobilka ku dhex jira aan si ogeyn waxyaalo badan aad ku ogaan kartid macluumaad badan mobilka dii laga hado kale saad u ogaan lahayd yani numberka serial numberkiisa aad u qoran lahayd sida مثلا aad waxyaalo ka qarsoon mobilkaaga oo application ama feature u baahan yahay mobilka aad enable looga dhigi lahayd ama activation ugu samayn lahayd. marka ila soco qodobka koowaad waxa weeye general test mode wax la yiraahdo sameynaysa. general test mode waxaad u baahan tahay yani mobilkii general test mode baynu sameynaynaa. marka hore koodka general test mode marka u baahan tahay mobilkaaga cusub yahay inaad iska test gareysay samaacadiisii codkiisii wax walba touchkiisii. yani waxaad sameynaysaa waxaad garaacaysaa koodkaas aad garaacaysaa xidig 4 xidig 4 gees. kabacdi halkaas ku keenayaa wad aragtaa kalaradii yani gariirkii kaameradii kale sensor touch speaker waxyaalo badan font camera saad u ogaatid مثلا waa dul tagaysaa oo taabanaysaa مثلا red oo kala taabanaysaa yani wuu isbedelay noocaas u noqday green oo kale يعني waxyaalo general ah yani marka mobilka cusub yahay moola qaar baan lahayn mobilka doona features ka lahayn yani waa mobil hay koobiya codka kala adeegaysa speakerka kale moolada wax laga yaabaa qaar low yihiin yani qaarna hay yihiin markastoo speakerku yani cod dheer yahay mobilkaaga mobil fiican. sidoo kale waxaad samayn kartaa kaamirada oo kale touch screen oo kale touchka oo kale taaban kartaa waad aragtaa waxa la ku qori kartaa inuu shaqeynayo touchkii. marka waa muhiim inaad garanaysid waxyaalahaas badan ma garanaysaa. version oo kale waa muhiim waxaan mobil baa lagu oranayaa mobilkaas yani waa A50 oo kale software version kiisa yani firmware ka uu ku samaysan yahay macni mobilku maybe inay kala duwanaadaan haddaad xagga ka eegtid labada number one is lahaadaan markaad eegtid mobilkaaga yani xaggan gudaha markaad ka eegtid systemka inuu ku dhex jira mobilka hadda iyo markaad xaggan oo aad timaadid about halka ku qoran tahay software information يعني halka ay ku qoran tahay base band adeegaysa software version ka marka yani base band version ka adeegaysa. marka muhiim inaad garanaysid yani waxyaalo inay smart karayaan markaad xaggan ka soo koodka garaacadida iyo graphical ahaan labadaba wada eegi kartaa. marka waa inay soo ka match gareeyaan yani isla haadaan asi kaas waa ka
sidoo kale waxaa muhiim ah inaad taqaanin wax loo yaqaano IMEI oo u taagan International Mobile Equipment Identifier. mobil kasta wuxuu leeyahay IMEI wax loo yaqaan oo kaga duwan yahay mobilada kale, faa'iido ku leeyahay inaad ogaatid. sidoo kale qodobka labaad aynu qaadanayno wax loo yaqaano sidoo kale qodobka labaad aynu qaadanayno waxaa ka mid ah isna IMEI wax loo yaqaan oo loo soo gaabshay International Mobile Equipment Identifier oo ka kooban 16 nambar ama 16 digit 16 god. wuxuu faa'iido ku leeyahay mobilkii markii laga xado kale wax nambarka lagu doono nambarka weeye. laba qaab baad u eegi kartaa, qaab yani graphical ahaan sidanka markaad timaadid about aad soo gashid halkaasuu ku yaalaa labo slot buu leeyahay. labada slot haddii mobilkaagu halkaa leeyahay hal slot weeye, hal uu leeyahay IMEI keliya IMEI ah. sidoo kale waxaa lagu ogaan karaa code inagoo lambar kooda baynu garaacaynaa. mithal ahaan waxa weeye intaana waa ku ogaan kartaa, waad aragtaa waa serial number mobilku yani halkan hoose dad ku aragtid wax ku aragtaa SN oo serial number u taagan R56M ah. halkaa hore waxaad ku aragtaa inuu leeyahay labo IMEI 1 iyo 2. marka that means mobilku markuu laba kala leeyahay labuu yeelanayaa, hadduu halkaa leeyahay hal mid buu yeelanayaa. markaasina labada qaab waa lagu ogaan karaa. qodobka labaad aynu qaadanayno waxa weeye mobilka waxaa jira waxyaabo ay features u qarsoon oo markuu cusub yahay haddaadan adigu aadan activate garayn aanu soo bixin aadan arkin waxay dhinaa aadan arkayn. matalan markaa xagga soo furtid oo kale sitanka markaad timaadid waxyaalo badan baa halka mobilada qaar leeyihiin yani inay kaa qarsoon yihiin baa laga yaabaa. kuwaas aad activate garayso waxaad imanaysaa halkay ku qoran tahay about phone. mobilka waxaa laga yaabaa halka about phone wax ka dambeeya inaysan jirin hadda, laakiinse waad check garayn kartaa iminka haddii phone ku joogto aanay ka dambeyn developer option. that means mobilkaagu yani way ka maqan tahay developer option. developer option is waxyaalo badan baa hoos yimaado oo features badan baa ku hoos jira. sidoo activate garayso waxaad imanaysaa halkan ku qoran tahay software information, kabacdi waxaad imanaysaa serial number halkay ku qoran tahay baa yani 3 times yani ama 7 times. hadda anigu yani developerkaas yani way activate garaysan yahay. halkaas wax ku aragtaa no need developer mode has already been enabled. waad aragtaa yani adi hadduusan ku ahayn yani aanu kuu joogin halka developer option aan ku muuqan yani halkaa imanaysaa markaas aad taabatay saa ku oranaya price 3 times or 7 times or 5 times adigu ku oranaya. markaa taabatid yani halkay ku soo geliyaa dib uga noqonaysaa halka about phone hoostiisa soo geliyaa isaga soo furaysaa. markaa waxyaalaha hoos yimaada memory oo kale waad aragtaa yani memory-gaaga uu ku sheegayaa. sidoo kale waxaad imanaysaa yani waxyaalo badan baa jira mobilkaaga markuu yani ama uu aad ka xiraysaa kan aan u fiicnay mobilka. waxaad imanaysaa halka ku qoran tahay window animation scale soo furaysaa yani wuxuu ku siinayaa skeelada kala duwan yani wuxuu ku siinayaa marka off baad leedahay marka hore waa on yani mid un baa kuu dooran waa 5 baa kuu dooran un baa kuu dooran ama 1 ay wax ka dhigaysa off. transition iyo sidoo kale off baa ka dhigaysaa iyo animate or duration scale isna wax ka dhigaysaa off. koodhkan aynu qaadanayno inoogu xiga waxa weeye yani mobilkaagu waxaa laga yaabaa inuu speedkiisu low yahay
oo marka application badan aad ku shubtid ama waxyaalo badan inuu mobilka ka cuslaado. waxaa jira qaab speed up yani loogu sameeyo, yani aad speedka loo kordhiyo. 3 level buu kala leeyahay mobilku, waa low, medium ama high. 3daa option waxaa jira code isagana lagu activate gareeyo hadba kaad u baahan tahay. yani waxaad garaacaysaa codekaas. markaad garaacdid waxaa kuu soo baxaya yani systemka mobilka oo firmwarekiisa waxyaalo badan baa ku jira. haddaad aragtid waxyaalo badan baa ka dhaliidi kartaa, laakiinse iska ilaali haddaad dhaliidid maybe inuu yani mobilkaagu dib u geysto ama uu shaqayn waayo kaa crash garoobo. laakiinse tan ugu muhiimsan oo innaga nu soconaa waxa weeye halkay ku qoran tahay baad imanaysaa debug level disable baa ku qoran tahay /low baad taabanaysa. marka 3daa option buu ku siinayaa debug level, yani waa speedka mobilkaaga, yani qaabka uu soo kacayo, qaabka uu shaqaynayo, yani ma medium ba, ma high ba, ma low ba. mobilkaagu hadduu yani hadba ka cuslaado adigu medium ka dhigi kartaa high. kabacdi markaa midka optionka taabatid mobilka wuxuu sameynaya restart soo dirayaa. mar labaad haddaad soo gasho codekii garaacdid yani kuu soo qoraya optionka ama high ama low ama medium. yani haddii mobilkaagu aad ka dareentay inuu culays yahay optionadaas isticmaalaysaa oo kaa. sidoo kale haddaad u baahantahay inaad ogaatid in nambarku ugu xawilan yahay, mararka qaar waxaa dhacda yani nambarku ugu xawilan yahay oo yani nambarkaaga ama qofku ugu xawisho ama adigu yani nambarku kaa xawilan yahay oo kale. waxaa lagu ogaadaa isagana codekaasaa lagu ogaadaa. yani halkaasuu kuu soo gelinayaa halkaa, yani waad aragtaa call forwarding ama voice oo kale aad forwarded oo kale. hadduu nambarku ugu xawilan yahay halkaa wuu soo gelayaa, nambarkii baa halkaa soo gelayaa mid ahaan. marka waa inaad iska saartaa. cashirkeena maanta intaasuu ku kooban yahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi taala.